taliyaha booliiska Soomaaliya oo shacabka fariin u diray amarna culusna iyo digniin u soo jeediyay kaxeeyaasha gaadiidka BL-ka asigoona ka digay inaan la fariisan karin maqaayadaha si caabuqa coronavirus ay u sii fideen. Janaalka Mustaf Doobiyo ayaa ka daawan doonta warbixin arrintaasi la xiriirta ay u diyaar garooba. balse intaan u gudagelin haddii iminka nagu soo biirtay fadlan calaamada subscribe-ka taabo gambaleelkana furo si fog joogta ugu noqotay janaalka Mustaf Doobiyo sidoo kalena calaamada like taabo fikirkaadana commentiga nagu soo dhiib asxaabtaadana la wadaag adigoo kaliya isku samin iminkana u diyaar garooba qodobkaasi oo dhammaystiran aan nii balballaarino janaalka Mustaf Doobiyo kala soo ciidanka booliiska Soomaaliya sareeye guuto Cabdi Xasan Xajaar ayaa ka hadlay dhibaatada fayraska corona uu ku hayo dunida gaar ahaan Soomaalida oo loo diiwaan geliyay 286 qof oo soo ritay cudurkaasi. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa faray dadka inay ka qayb qaataan kaalintooda isla markaana ay ka fogaadaan goobaha la iskugu yimaado si gaar ahna wuxuu ugu digay in la fariisto maqaayadaha banaankooda iyo sidoo kalena gudahooda. waxaa kaloo la sheegay in wax lagu cuno tan iyo inta lagu guda jiro la dagaalankaasi coronavirus. wuxuuna sidoo kalena sheegay in loo baahan yahay in la joogo guryaha si looga badqabo dhibaatada xooggan oo galaafanayo ummadda qabaheeda kala duwan cudurkan coronavirus. dhinaca kalena wuxuu kaalintaasi sheegay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo isla markaasina la dhaqangeliyo. wuxuuna dhanka kalena amar culus oo duldhigay u diray isla markaasina taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya odayaasha gaadiidka dadweynaha qaada isigoona faray in dadka rikaabka ay qaadi jireen ay ka yareeyaan si looga badqabo dhibaatada faraha badan oo ku hayo dunida iyo weliba Soomaalida cudurkan coronavirus. hadalkan ka soo baxay taliye Xajaar ayaa wuxuu imaanayaa xilli dhowaan uu shaaciyay inuu bandowga soo hordhigayo isla markaasina bisha Ramadaan laga dhigi doono 7 fiidnimo ayadoona qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay si gaar ah ugu hadleen gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay sheegeen in amarada ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo saameynta badan ay ku yeelato isla markaasina amarkaasi oo ka shaqeeyo kaliya magaalada Muqdisho.